bismillahi raxmaani raxiim asxaabta dhammaan kusoo dhawaada sida cv loo sameeyo cv si ay u sameyn kartaa cv dabcan waxaa loo sameyn karaa siyaabo badan word waa ku sameyn kartaa waxaa ku sameyn kartaa iyo kale qaabab kale artificial intelligence adoo adeegsanaya sidoo kale iyo website-yada meelo lagu sameeyana way jiraan marka waxaa kaloo ku sameyn kartaa application-nada kala duwan marka laga heli karo marka tusaale application-kan oo kale create cv baa la yiraahdaa play store-ka kala soo degaysaa isaga markaa ku habaynayo si fudud haddaba waxaa u sameyn kartaa markaa la soo degtid sidaan oo kale wuxuu ku siinaya qaybta ugu horeysa oo halkaa ah wuxuu ku siinayaa information ku saabsan personal information waa kuwa marka waa xogta adiga kugu saabsan first name magacaaga gelinaysaa jaamaca haddii lagu yiraahdo tusaale aan kasoo qaadno magacaana waa magaca kale ee ku xiga last name magaca ugu dambeeya magaca aabaha oo kale jaamac cali oo kale markaan nidhaahno profession-ka waa maxay profession waxyaalaha marka isagu ugu soo dhigaya waxaad ka shaqayso waxaa tahay halkan oo kale haddii profession-ka data analyst uu yahay tusaale aan kasoo qaadno data analyst baa tahay qof bartay dhaatooyinka sida loo analyze gareeyo male iyo female ka tahay dee male baa tahay hadda female haddana female baa halkaa ku dhiganaysaa nationality waa wadanka marka nationality-ga iyo date of birth waxaa la yidhaha cv-ga iskale maraykanka iyo xogaa ugu kala duwan yihiin wadamada kale maraykanka marka wuxuu ku daraa nationality waa gelinaysaa halkaas wadanka u dhalatay date of birth dhib male waa ka guuri kartaa nambarkaagana halkaasaa gelinaysaa inay number baa gelinaysaa marka nambarkaaga halkaa gelisid emailkaagana halkaasaa gelinaysaa emailkaaga marka halkaa gelisidna waxaa sameynaysaa linkedin iyo facebook hataa leedana halkaasaa gelinaysaa facebook halkaa markay ku dhammaato intaas waa xogtii ku saabsaneed qofka objective baa gelaysaa marka objective-ka marka data analysis hadday tahay mid aad samaysato waa qoran kartaa waxaa kaloo qoran kartaa mid adigu aad markaas halkaana waa ka dhex dooran kartaa kuwaana mid ku dhufanaysaa marka to secure a position that allows me to grow professionally while making a positive impact on the company tanna waa soo qaadan karta marka dardar intaa markaa dhammaysid waxaa kugu xiga education waxbarashadaadii kala duwaneyd laga soo bilaabo dugsi waxaa ugu muhiimsan sare iyo jaamacadda marka halkaas jaamacaddaad ku dhigaysaa jaamacadda banaadir oo kale halkaa ka baxday banaadir university ama aad tusaale weeyaan ama Addis Ababa oo kale aad ka baxday Addis Ababa University halkan waxaa gelinaysaa fildiga waxaa halkaa gelinaysaa degree waxaad ku qalin jebisay sanadkaa qalin jebisay iyo sanadkaa bilowday Addis Ababa markaad halkaas university aan qorno information technology oo kale aan ka dhigno information technology sanadkaa soo gashay 2018 anaa ka baxana 2022 sidaas oo xaranaysa education halkaas ka baxay maxaa skills aad leedahay skillska marka halkaan ka dooranayso skills waa xirfadaha ugu muhiimsan ee marka aad yeelan karto marka problem solving adaa wax kale ku daraysina adaptability fast typing oo kale beginner miyaa tahay ma arfin proficient aan ka dhigno intaa markaad dhamaysid skillsku waa wax ku xiran qofka xirfadiisa marka waad badsanaysaa iyadana waa experience-gaas khibradaad samey macnaha waxa weeyaan
waxyaalaha waddanka meelaha ka soo shaqeysa hadaad soo shaqeysa hadaad khibrad lahayn waa ka gudbaysaa. Halkaa waa khibradda. Achievements waxaa la yidhahdaa waxyaalaha aad qabatay inta meesha joogtay. Haddii lagu siiyey abaalmarinta nooca ay tahay projects hadaad fulisay, mashruucyo sanadkaaga fulisay, shirkadaad u fulisay, marka iyadana waa taa. Hobbies kuna waxaa weeyaan waxyaalaha qofka uu ka helo. Photography miyaa ka heshaa ama poetry baa ka heshaa, waxyaalahaas miyaa ka heshaa. Languages marka ugu dambeysa waa luqadda. English tusaale English hadaad tirahdid waa ku darsanaysaa. English Arabic waa ku darsanaysaa, marka waa kusii darsanaysaa waxa luqada aad taqaanid. Referencesku waa muhiim. References waa ku qoranaysaa qofka magaciisa referencega ku ah, halkaas magaciisa ku qoranaysaa, halkaana shaqadu qabto weeyaan, halkaana waxa weeye company magaciisa, halkaana telefoonkiisa, halkaana gmailkiisa weeyaan. Qofka markana saas ugu darsanaysaa isaga kadibna waxaa oranaysaa add. Publications waxaa weeyaan haddii wax publication aad samaysay ama aad research samaysay, sanadkaa samaysay, iyo title-ka samaysay, iyo qoraaga magaciisa. Additional titles halkaana waa additionals. Details kale weeyaan intaasaa ugu muhiimsan. Marka saasaa loo baahan yahay. Marka hadhow dhammaysid wax oo dhan isagaa markaa